السلام عليكم وسمسم حسن oo idin ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni baaritaanka ama wax ka ogaanshaha dadkeenii hore ee halyeeyada ahaa. maanta waxaan wax ka ogaan doonaa taariikhda Xaaji Faarax Omar. Xaaji Faarax Omar taariikhdiisa wuxuu dhashay 1871 ilaa iyo wuxuu noolaa 1949. Xaaji Faarax Omar waxa uu ahaa halyeey u huray naftiisa u dagaalanka madaxbannaanida dalkiisa muddo aad u dheer. gumaysigii Ingiriiska dagaal kula jiray, waxa uu noloshiisa ku dhamaystay dagaal, dood, mastaafuris, cidhiidhi xagga dhaqaalaha ah, shaqo ka eri iyo dadka oo laga hor keeno. Faarax waxa uu doortay inuu ku dagaalamo awoodda qalinka. waxa halgankiisu ka caaganaa gacanka hadal. waxa xaajigu rumaysnaa in gumaysiga lala galo dagaal casri ah sida mudaharaadyo iyo gadoodyo, laguna muquuniyo kacdoono shacab weyne, iyada oo haba yaraatee aan gacan la qaadin. waxa xilligaas aad u adkaa in la arko ruux madow oo raba inuu la diriro quwaddii gumaysiga oo ku gaadhnayd hub heer sare ah si uu madaxbannaanida dalkiisa u soo celiyo isagoo aan adeegsan wax hub ah. badiba saaxiibadiisii xilligaasi waxay arkeen in isbeddel kasta oo ay rabaan laga soo xerogeliyo awoodda qoriga. hase ahaatee Faarax, iyada oo dariiqaasi u furnaa ayuu ka leexday. waxa mabda'iisu gacanka hadal la'aantu Xaaji Faarax Omar ka dhigay shakhsiyad ka aragti horeysa, kana duwan dhammaan hogaamiyayaashii kacdoonadii madaxbannaanida raadiska ahaa ee Afrikaanka kale. Faarax Omar waxa uu ahaa hogaamiyaha keliya ee Afrikaana ee isbeddel muuqda ka sameeyay dalkiisa iyadoo uu weli gacanta gumaysiga ku jiro, sida wax ka beddelka qaabkii xukuumaduhu u shaqayn jireen, furitaankii ururo khayriyaada iyo golo deegaan. waxa uu shacabkiisa tusayay habka doorashooyinka cod ururis ah iyo in qof kastaaba xor u yahay inuu dooran karo hogaamiyaha uu rabo. waynoo qaybta dambe. waa Samsam Xasan oo idin leh nabadgelyo.